السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يلكسو دوادا قرما غابن oo aynu ku eegayno warar ay qorayeen warbaahinta bad aalaaba ka soo baxda ama ka faaloota siyaasadda bariga dhexe oo ku saabsanayd in dawladda Turkiga ay ku kalifeen wadamo Carbeed in ay yeelato jabhadda Xuutiyiinta ee uu hogaamiyo Cabdilmaalik al-Xuuti isla markaana dagaalka kula jirta dawladda taas daran ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdurabbi al-Mansuur Hadi oo isaga uu taageero dalka Sacuudi Arabiya. warbaahinada ayaa qoray wiyagii la soo dhaafay in Turkiga u muuqdo inuu taageero fiican siin doono jabhadaasi balse tan ayaa u muuqata mid run ah kadib markii wadamada Imaaraadka iyo Sacuudi Arabiya ay ku dhawaaqeen inay taageersan yihiin markay noqoto howlgalka Liibiya dalka Masar isla markaana ay garab taagan yihiin madaxweyne Abdul Fattah al-Sisi iyo howlgalladiisa uu ku xoojinayo taageerada Khalifa Haftar ee hogaamiye jabhadda LNA ee ku kacsan dawladda Liibiya. dalka Turkiga oo isagu sheegay markii hore inaanu rabin inuu faraha la galo siyaasadda caalamka Islaamka iyo khilaafaadka baan ee ka dhaxaloosan ayaad moodaa iminka inay ku kaliftay dantu inuu taageero jabhadda Xuutiyiinta isla markaana uu taa kala mid noqdo Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. waayo labada dal ee faraha baas ku haya amaba siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba daba socda isla markaana raba inay u jabiyaan cadawga waxa weeye Imaaraadka iyo dalkaasi Sacuudi Arabiya tan hadduu gacan saar la yeesho Turkiga jabhadda Saydiyiinta ee Xuutiga al-Yaman noqonaysa mid gabi ahaanba oo xididada u siibay dawladda boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka oo iyagu ah boqortooyooyin macmala oo cid ogolayn isla markaana aanay dooran shacabka wadamadoodu. dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa in badan ka fiirsatay isla markaana indhaha ka lalisay in ay faraha la gasho siyaasadda qasan ee dalka Yemen balse tan ayaa u muuqata markii siyaasadda ka taagan dalkaasi Liibiya oo isagu juqraafiyan ka fog wadamada Khaliijka ay faraha la soo galeen Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka oo iyagu dabada ka riixayaan Israa'iiliyiintu. xaaladan ayaa noqon doonta mid halisa maadaama ay Yemen ku taalo meel istiraatiiji isla markaana ay kulaalayso biyaha Baabal Mandab oo ay soo socodka biyaha caalamka. masaarida ayaa laga yaabaa haddii ay taasi imika uu kaga dhabeeyo dalka Turkiga inay iyadu la fahanteedu dib uga gurato hawsha ay isleedahay faraha la gal ee militarigeeda ugu dirayso dalkaasi Liibiya. madaxweynaha awoodda daran ee dalkaasi Yemen Cabdurabbi Mansuur Hadi ayaa la sheegay isaga la fahantiisu inuu qabay tuhunno ah inay Ankara caawin doonto Cabdilmaalik al-Xuuti oo isagu ah hogaamiyaha jabhadda la loodin waayay ee Xuutiyiinta Yemen oo iyagu gabi ahaanba ka adkaaday xulafadii isku magacawday Xaasifatul Xasmi ama dabaysha go'aanka ee uu horboodayay boqorka Sacuudi Arabiya boqol Salmaan iyo amiirka dalkaasi Imaaraadka al-Nahyan. warar kale ayaa iyaguna sheegaya in tani ay isku xidhi doonto labada wadan ee iyagu imika ay isha ku hayaan wadamada reer galbeedku isla markaana aad horumarka uga sameynaya dhanka gaashaandhigga iyo tiknoolajiyadda oo kala ah Turkiga iyo Iiraan. waayo Iiraan ayaa Mareykanka ayaan isba arki kareynin maadaama taasi ay noqotay inuu cadow u arko dalkaasi Mareykanku aanay haddana siyaasaddu isqabanaynin in Turkiga iyo Mareykanku sanadihii u dambeeyay saaxiibtinimo fiican dhex martay inay xaaladdu ku kala boodi doonaan haddii uu Turkigu rabo inuu la mataanoobo isla markaana uu caawiyo jabhadda Xuutiyiinta ee dalka Yemen. balse madaxweyne Trump ayaa isaga la tuunsan yahay inaan niyad badan u haynin inuu dagaalka iyo xifiltanka ka socda Yemen uu faraha la galo maadaama isaga xaaladiisu ay aad u liidato oo uu ku haftay banaanbaxyada iyo rabshadaha baan ee ka taagan dalkaasi.